xiisas siyaasadeed oo si hoose u qaraxday ayaa maanta si cad u soo muuqatay kadib markii madaxweyne ku-xigeenka maamulka waqooyi bari cabdirashiid abwaanka uu si lama filaan ah uga baxay kulan qada sharafeed ah daqiiqada kadib markii goobta uu soo gaaray madaxweynaha waqooyi bari cabdulqaadir firdhiye ka bixitaanka cabdirashiid abwaanka ayaa si toos ah ula xiriirto khilaaf muddooyinkii dambe soo jiitamaya oo u dhexeeya isaga iyo madaxweynaha kaas oo la sheegay inuu salka ku hayo awood qaybsiga go'aamada siyaasadeed iyo habka loo maamulo maamulka cusub ee waqooyi bari. Goobjoogyaal ayaa sheegay in jawiga kulanka uu ahaa mid deganaa, balse uu si degdeg ah isu bedelay markii uu Firdhiye yimid, taas oo keentay in madaxweyne ku-xigeenka uu ka baxo goobta isagoo aan wax hadal ah jeedin. Talaabadan ayaa loo fasiray fariin siyaasadeed oo cad oo muujinaysa in khilaafka uu gaaray heer aan la qari karin. Dhanka kale, mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya oo ku sugan Laascaano ayaa wada dadaalo xooggan oo lagu doonayo in lagu qaboojiyo khilaafka. Wadahadallada iyo waawaanta socota ayaa diiradda lagu saarayaa sidii labada dhinac loo kala dhexgeli lahaa, loona heli lahaa is-afgarad siyaasadeed oo lagu sii wadi karo shaqada maamulka waqooyi bari. Khilaafkan ayaa imaanaya xilli uu maamulka waqooyi bari ku jiro marxalad dhisme iyo isku day lagu dejinayo hay-adihiisa. Khubaro siyaasadeed ayaa aaminsan in haddii khilaafka hoggaanka sare aan si degdeg ah loo xalin uu wiiqi karo kalsoonida shacabka iyo taageerada ay ka helayaan dowladda federaalka iyo beesha caalamka. Ka bixitaanka kulanka ee madaxweyne ku-xigeenka wuxuu muujinayaa in isfaham la'aantu ay gaartay heer shakhsiyadeed iyo mid siyaasadeedba. Tani waxay halis gelin kartaa wada shaqaynta hay-adaha maamulka, gaar ahaan dhinacyada amniga, maaliyadda iyo maamulka guud. Dadaalada ay wado dowladda federaalk ayaa muujinaya walwalka ay ka qabto in khilaafka uu u gudbo xasilooni darro amni ama kala jab siyaasadeed, maadaama Laascaanood iyo deegaanada ku xeeran ay yihiin meel xasaasi ah oo dhowaan ka soo kabanaysa dagaallo iyo khilaafaad hore. Haddii wadahadallada guuleystaan, waxaa la filayaa in labada mas'uul ay soo saaraan bayaan wadajir ah oo lagu muujinayo dib u heshiisiin. Haddii ay fashilmaanse, waxaa suuragal ah in khilaafka uu noqdo mid furan, saameynna ku yeesha mustaqbalka maamulka waqooyi bari iyo kaalinta uu ku leeyahay siyaasadda guud ee Soomaaliya. Xiisas siyaasadeed oo si hoose u qaraxday ayaa maanta si cad u soo muuqatay kadib markii madaxweyne ku-xigeenka maamulka waqooyi bari cabdirashiid abwaanka uu si lama filaan ah uga baxay kulan qada sharafeed ah daqiiqada kadib markii goobta uu soo gaaray madaxweynaha waqooyi bari cabdulqaadir firdhiye. Ka bixitaanka cabdirashiid abwaanka ayaa si toos ah ula xiriirto khilaaf muddooyinkii dambe soo jiitamaya oo u dhexeeya isaga iyo madaxweynaha, kaas oo la sheegay inuu salka ku hayo awood qaybsiga go'aamada siyaasadeed iyo habka loo maamulo maamulka cusub ee waqooyi bari. Goobjoogyaal ayaa sheegay in jawiga kulanka uu ahaa mid deganaa, balse uu si degdeg ah isu bedelay markii uu Firdhiye yimid, taas oo keentay in madaxweyne ku-xigeenka uu ka baxo goobta isagoo aan wax hadal ah jeedin. Talaabadan ayaa loo fasiray fariin siyaasadeed oo cad oo muujinaysa in khilaafka uu gaaray heer aan la qari karin. Dhanka kale, mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya oo ku sugan Laascaano ayaa wada dadaalo xooggan oo lagu doonayo in lagu qaboojiyo khilaafka. Wadahadallada iyo waawaanta socota ayaa diiradda lagu saarayaa sidii labada dhinac loo kala dhexgeli lahaa, loona heli lahaa is-afgarad siyaasadeed oo lagu sii wadi karo shaqada maamulka waqooyi bari. Khilaafkan ayaa imaanaya xilli uu maamulka waqooyi bari ku jiro marxalad dhisme iyo isku day lagu dejinayo hay-adihiisa. Khubaro siyaasadeed ayaa aaminsan in haddii khilaafka hoggaanka sare aan si degdeg ah loo xalin uu wiiqi karo kalsoonida shacabka iyo taageerada ay ka helayaan dowladda federaalka iyo beesha caalamka. Ka bixitaanka kulanka ee madaxweyne ku-xigeenka wuxuu muujinayaa in isfaham la'aantu ay gaartay heer shakhsiyadeed iyo mid siyaasadeedba. Tani waxay halis gelin kartaa wada shaqaynta hay-adaha maamulka, gaar ahaan
dhinacyada amniga, maaliyadda iyo maamulka guud. Dadaalada ay wado dowladda federaalka ayaa muujinaya walwalka ay ka qabto in khilaafka uu u gudbo xasilooni darro amni ama kala jab siyaasadeed, maadaama Laascaanood iyo deegaanada ku xeeran ay yihiin meel xasaasi ah oo dhowaan ka soo kabanaysa dagaallo iyo khilaafaad hore. Haddii wadahadallada guuleystaan, waxaa la filayaa in labada mas'uul ay soo saaraan bayaan wadajir ah oo lagu muujinayo dib u heshiisiin. Haddii ay fashilmaanse, waxaa suuragal ah in khilaafka uu noqdo mid furan, saameynna ku yeesha mustaqbalka maamulka Waqooyi Bari iyo kaalinta uu ku leeyahay siyaasadda guud ee Soomaaliya.